maanta sharaf ayay noo tahay weyn waxaan soo booqday xaafadda Amr Real Estate aan ku soo dhaweynay xildhibaan Sabakaab Xuseen oo ka tirsan golaha xildhibaanada gobolka Minnesota runtii sharaf gaar ah noo tahay in halkan ku soo dhaweyno waxaan ugu bishaareynaa xildhibaanka inuu sheegaynaa xaafadan cid ugu badan oo gadatay waa reer Minnesota sharaf iyo karaamo gaar ah noo tahay in nagu soo booqatay maanta xaafadii soo aragtid aan kugu soo dhaweyno xildhibaan waxaan ku leenahay ku soo dhawow dalkaagii ku soo dhawow Puntland ku soo dhawow caasimadda Puntland ee Garowe ku soo dhawow xaafadda casriga ah ee Amal Village iyo Amr Real Estate waa mahadsantahay waxaan maantay fursad u helay aniga iyo xildhibaanku inaanu booqano guryaha waaweyn ee shirkaddu ay ka gelisay magaalada Garowe runtii wax weyn baan ku soo aragnay waxa aan ku soo aragnay waxaan jecelahay inaanu la wadaagno dadkeenii Minnesota degana nin qof walba wuxuu leeyahay dal buu leeyahay dib u dhiska dalka iyo horumarinta deegaanada qof walba ka soo jeeda waa waajib qof kasta saaran anigu reer Garowe waan ahay runtii xildhibaankana waxaan rabnaa inaan soo dejino Garowe soo dejino xildhibaane maanta indhaha waxba ku aragtay Amal Village iyo Amr Real Estate waa hawsha soo bandhigtay iyo guryaha soo bandhigtay iyo dabcan jaaliyadii iyo ganacsatadii iyo dadkii aanu ka nimidna waa la wadaagi doonaa saaka waxaa farxad noo ah inaan joogno dhismaha weyn Amal Real Estate si gaar ah anagoo ku soo dhaweynaynaa xildhibaan Sabakaab oo waddanka Mareykanka nooga yimi iyo saaxiibka Cabdixakiin oo runtii muddo dheer aan rafiiq ahayn farxad gaar ah ay tahay horta marka koowaad inaan waddankeena ku soo dhaweeyo oo aad aragtaan horumarka waddanka ka socda iyo maalgelinta ay wadaan dadka reer Puntland indhihiina ku soo aragteen hantida maanta halkan la geliyay iyo sida ay ula jaan qaadayso waddamadii horumaraya ka timaadeen farxad bay noo tahay ku soo dhawaada in aragtaan waxaan u mahad celinayaa Maxamed Faarax oo runtii ifantigan saaka noo abaabulay Garowe anagoo joogna inaan helo waddan kale oo casriyana aad bay noo farxad gelinaysaa waa ku dhiirigelinaynaa ganacsatada localka iyo qurbo joogtaba inay ka qayb qaataan dadaaladan ay wadaan Amal oo ay gataan guryahan oo soo degaan si ay u siyaado xadaaradda iyo iswadaarsiga iyo aqoonta iyo in la sameeyo aqoon iswadaarsi iyo ganacsi waxay tahay farxad maanta halkan Amal Village in aan Amal Real Estate oo hogaaminaya nin dhalinyaro ah oo aqoon-yahan ah oo waddankan weligiis ka bixin Maxamed Faarax waxay la tahay perspective-ka ama ideadan ka haysanay idea ka duwan inaad isku tashateen waxaan ka helay hal door aad ku soo qorteen meelaha qaarkiis oo ah ku noolow dalkaaga oo la noolow dunida kale yani waa dhiirigelin ay tusayso ummadda Soomaaliyeed inay isku tashatay guryahan quruxda badan iyo green space-ka xadiiqooyinka Amal Real Estate wax kasta oo kaamil ah waa haysataa dugsigii waxbarashadii caafimaadkii masaajidyadii meelihii lagu dalxiisayay tuurkan aad soo siisay ama aad soo tustay aad iyo aad baan ideadan ka haysanay wax badan bay naga bedelaysaa sidaan la socdo dad badan oo reer Minnesota baa tiri inay maal gashteen dadkaasna waan uga mahad celinaynaa siday rabaan dadkooda iyo dalkooda iyo waddankooda inay u maal gashtaan projectiganne ma Mareykan kumaan arag Soomaaliya meelaha ka mid ah ay ka mid tahay Garowe Soomaaliya inteeda kale inay ku dayato aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa waqtigii iyo fursaddii aad siisay in aan ku soo wareego projectina ku soo arkay waa horumar u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto congratulations and value.